markan wararkii ugu dambeeyay xagga Gaza inuu qoraasano halkaasi oo Israa'iil ay wali sii wado beegsiga iyo godoominta ay ku hayso dadka Falastiiniyiinta ah ee reer Gaza. ilo ku sugan isbitaalka ku yaala Gaza ayaa xaqiijiyay in ilaa 21 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay rasaasta ciidanka Israa'iil tan iyo waa berigii hore ee maanta, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 14 qof oo lagu dilay magaalada Gaza. warar kale oo waaweyn ayaa inoo soo socda, balse haatan aynu eegno war degdeg ah oo hadda soo dhacay. warbaahinta Israa'iil ayaa soo warisay in ciidanka Israa'iil uu la kulmay dhacdo amni oo culus oo gudaha marinka Gaza ka dhacday, taasi oo sababtay dhimashada 4 askari oo lagu dilay rasaas ay fureen xoogaga iska caabinta. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxay ku warantay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ka soo degeen isbitaalka Iklov iyagoo oo sida dhaawacyo laga keenay marinka Gaza. warbixin uu daabacay wargeyska Israa'iiliga ah ee Hadashos Bezman ayaa lagu sheegay in 4 askari oo ka tirsanaa ciidanka gaashaaman ay ku dhinteen qarax miino iyo rasaas lagu hubiyay deegaanka Jabaliya ee waqooyiga Gaza. warbixintu waxay intaasi ku dartay in xogaga iska caabintu ay qarax ku beegsadeen ciidankii saarnaa taangi Israa'iili ah waa berigii sidoo kale agagaarka Jabaliya waxaana kale oo rasaas ay ku fureen taangiyada iyo taliyaasha, taasi oo sababtay in uu dab qabsado isla markaana ay ku dhintaan xubnihii saarnaa taangiyadaasi ee ciidamada Israa'iil ka tirsanaa. dhinaca Israa'iil haddii aynu jalleecno, wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa maanta ku dhaartay inuu duqeyn doono dhismayaasha dabaqyada ah ee ku haray gudaha magaalada Gaza, isla markaana uu burburin doono gabi ahaanba marinka Gaza iyo Xamaas haddii aan la sii deynin maxaabiista laga haysto oo iska caabintuna aysan dhigin hubka. Katz oo qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada waxa uu ku yiri maanta duufaan weyn ayaa dhici doonta, taasi oo ka imaan doonta cirka magaalada Gaza. saqafyada dabaqyada argagixisada ayaana ruuxmi doona. isagoo oo digniin u diraya hoggaanka Xamaas ayuu yiri tani waa digniinta u dambeysa, sii daaya la haystayaasha hubkana dhiga, haddii kale Gaza waa la burburin doonaa, idinkuna waad baabi'i doontaan. Tel Aviv waxay ku qiyaastay inay jiraan ilaa 48 xabuus oo Israa'iiliyiin ah oo ku jira gacanta Xamaas, halka qiyaastii 11,100 qof oo Falastiiniyiin ah ay ku jiraan xabsiyada Israa'iil, halkaasi oo ay kala kulmaan jirdil, gaajo iyo dayacaad caafimaad. tacdiyadaasi oo intooda badanna dila dadkaasi ama sababa in dadkaasi ku dhintaan gudaha xabsiyada, sida ay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta. Katz ayaa hadalkiisa sii raaciyay ciidanka difaaca Israa'iil waxa uu sii wada qorshihiisa, waxaana haatan uu diyaar garoobayaa balaarinta howlgalka lagu qabsanayo Gaza guud ahaanteeda. dacda kalena hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Eyal Zamir uu go'aansaday inuu la fariisto hoggaanka sare ee ciidamada si ay uga wada hadlaan saameynta dagaalkan socda muddada dheer uu ku yeeshay askartooda. kulankan ayaa sidoo kale lagu qaadaa dhigi doonaa xiisadaha bulsho iyo kuwa dhaqaale ee sii kordhaya, iyadoona dagaalku uu weli sii socdo sida lagu sheegay warbixinta uu sheegay wargeyskaasi. isla arrimahani, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ah ee Israa'iil Yair Golan ayaa weerar ku qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isagoo oo ku tilmaamay mid khatar ku ah jiritaanka Israa'iil, kuna baaqay in si degdeg ah xilka looga qaado. qoraal uu ku baahiyay internetka ayuu ku sheegay in Netanyahu uu yahay mid u burburinaya si joogto ah heshiisyada lagu xalinayo ama lagu soo celinayo la haystayaasha, isla markaana uu diido hindise kasta oo lagu joojinayo dagaalka laguna soo afjarayo xaaladaha degdega ah ee Israa'iil. isagoo intaasi ku daray ma jiro qorshe amni oo halkan yaala. dagaalka lagu doonayo in lagu qabsado Gaza waxaa loogu talagalay oo kaliya inuu kursigiisa ku sii haysto kuna dhammaystiro afgembiga nidaamka, isagoo dagaalka hoostiisa isku qarinaya. Netanyahu waa mid khatar ku ah Israa'iil, waana inaanu hal maalin oo dheeraad ah xilka ku sii jirin. annaga ayaan bedeli doonaa, walaalaheena la afduubtayna waanu soo badbaadin doonaa, dagaalkana waa joojin doonaa, amniga Israa'iilna waan soo celin doonaa, ayuu ku andacooday Yair Golan. isla wararka Israa'iil, maxkamadaynta musuqmaasuqa ee Netanyahu waxaa la qorsheeyay in maanta dib loo bilaabo, iyadoo nidaamka garsoorkana uu ka soo laabtay fasaxii uu galay bishii Agoosto kadib markii Netanyahu uu ka maqnaa dhageysyadii bishii Luulyo sabab la xiriira xanuun xagga caloosha ah.
dhageysiga ayaa bilaaban doona marka la gaaro duhurnimada maanta waqtiga maxalliga ah ee Israel waxaana la filayaa inuu socdo saacado badan dhageysiga maxkamadaynta ayaa dhici doona albaabada oo xiran iyadoona sababa amni dartood lagu sifeeyay maadaama xog xasaasi ah lagu falanqeynayo halkaasi kiiska oo hadda maraya marxaladda isweydaarsiga su'aalaha ayaa soo socday tan iyo sanadkii 2020 Netanyahuna waxa uu bixiyaa marqaatiyo 2 jeer isbuucii tan iyo bishii December balse dhageysiyo badan ayaa la baajiyay ama la soo gaabiyay sabab la xiriira waajibaadkiisa xilka iyo caafimaad darro la sheegay inay soo wajahday Netanyahu watahay markana xagga Madrid aynu jaleecno dowladda Spain ayaa qaaday tallaabo u xun Israel ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa maanta shaaciyay in Spain ay ka hor istaagi doonto maraakiibta Israel ee sida nidaamyada difaaca inay ku soo xirtaan dekedaha dalkiisa Spain isla markaana ay ka mamnuuci doonto Spain dhammaanba diyaaradaha sida hubka ama rasaasta ay isticmaalaan ee hawada Spain Sanchez waxa uu sheegay in maraakiibta shidaalka keena ee ciidamada Israel laga hor istaagi doono inay ku soo xirtaan dekedaha Spain iyadoona dawladdu ay diyaar u tahay sharci dejin lagu dhaqan gelinayo cunaqabatayn hub oo dhameystiran oo ka dhan ah Tel Aviv Spain waxay kordhin doontaa gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza loo qoondeeyay iyadoona ay ku daraysa ilaa 10 milyan oo euro oo u dhiganta 11.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah deeqda ay siiso hay'adda UNRWA Sanchez waxa uu yiri waa inaan la shaqeynaa ama ka shaqeynaa nabadda bariga dhexe wixii aan sameynay ilaa iyo hadda ma aysan yareynin silaca dadka Falastiiniyiinta ah haysta isagoona intaasi ku daray waxa jira farqi u dhaxeeya difaacidda dalkaaga duqeynta isbitaalada iyo gaajeynta dadka waxa Israa'iil ay sameynayso ma aha isdifaac balse waa ku tirdirid cad oo lagu sameynayo dad ama qoomiyad gaar ah Mareykanku waxa uu dhagax ku tuuray biyo fadhiya oo ah wada hadallada oo cakirna kadib markii uu ku dhawaaqay qorshe cusub oo ay ku jirto xaalad dhameystiran oo lagu sii deynayo dhammaan maxaabiista taasi oo lagu bedelanayo xabajoojinta iyo dagaalka Israa'iil ay ka wado Mareykanka Gaza falanqayaasha siyaasadeed ayaa isku raacay in qorshaha cusub ee Mareykanku uu xambaarsan yahay arrimo ballaaran oo la fasiri karo in Xamaas la saaro culays mas'uuliyad xambaarsan iyo xaalad aan lagu farxin gaar ahaan iyadoo ay adag tahay in la helo damaanad ah in Israa'iil aysan dib u bilaabi doonin dagaalkeeda kadib marka maxaabiista ay wareejiso Xamaas Mahmoud Al-Rantisi oo ah cilmi baare iyo qoraar reer Falastiini ah ayaa sheegay in qorshahani cusub uusan ka reebin inuu qayb ka yahay xeelada Israa'iil ee marin habaabinta iyo mashquulinta iyadoo oo dib loogu celinayo dhinaca Falastiiniyiinta kubadda kadib markii Washington iyo Tel Aviv aysan ka soo jawaabin hindisihii hore ee la soo bandhigay ee Xamaas ay soo ogolaatay 18 bishii hore isaga oo ka qayb qaadanayay falanqayn uu sameeyay telefishinka Al Jazeera Al-Rantisi waxa uu sidoo kale u suudiiyay in qorshaha Mareykanku uu ku saleysan yahay shantii shuruudood ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku xiray ogolaanshiyaha in dagaalka lagu joojiyo isagoo muujiyay kalsoonida in Xamaas ay diyaar u tahay soo jeedin kasta oo dhab ah si kastaba ha ahaatee waxa uu adkeeyay in habka wada hadalladu uusan ku socon karin hadal oo kaliya balse uu ku dhisan yahay qodobo cadcad isagoo oo sheegay in meesha ay ku jirto kalsooni la'aanta Falastiiniyiintu ku qabaan maamulka Mareykanka iyo jiritaanka damaanad la'aanta in wixii lagu heshiiyo ay soconayaan Al-Rantisi waxa uu sheegay in Xamaas ay muujisay mas'uuliyad weyn iyo dabacsanaan maadaama xaaladda Gaza ay tahay mid musiibo ah isla markaasina ay aqbashay in ciidamada si tartiib loo saaro lana sii daayo dhammaan maxaabiista heshiis dhameystiran oo ay damaanad dhab ay ka bixinayaan dhexdhexaadiyaasha iyo qaramada midoobay maamulka wada hadallada qorshahani cusub sidoo kale waxa uu ka hooseeyaa mid sax ah waxaana uu tilmaamay in jihada guud ee Washington iyo Tel Aviv ay ka hadlayaan heshiis dhameystiran uu yahay mid ay su'aalo waaweyn ku geedaaman yihiin sida uu sheegay Bilal Al-Shabaki madaxa culumta siyaasadda ee jaamacadda Al-Khaliil hindisahan cusub waxa uu xambaarsan yahay ciwaano ballaaran oo la fasiri karo waxa laga yaabaa in uu yahay aqbalid buuxda oo shuruudaha Israa'iil Shabaki waxa uu xaaladan ku qeexay mid u dhow in wada hadalladu socdaan isla markaasina ujeedadu ay noqon karto dejinta culayska gudaha Israa'iil iyo midka caalamiga ah iyo sii waditaanka howlgalka military qorshahan cusub wuxuu ku kooban yahay sii deynta dhammaan maxaabiista Israa'iil maalinta ugu horeysa ee heshiiska la fuliyo taasi oo lagu bedelanayo sii deynta boqolaal maxaabiista Falastiiniyiinta oo xukunno culus lagu riday iyo joojinta dagaalka gaadiidka geediyo labo ee Israa'iil ay bilowday horaantii bishan si ay u qabsato magaalada Gaza laakiin sida uu sheegay Al-Shabaki Netanyahu waxa ay ku adkaan doontaa in uu iska indhatiro heshiis ay Falastiiniyiintu aqbalaan sababtoo ah waxa ka degi lahaa culayska arrinta murugsan ee maxaabiista
markaasina kuma qasbanaanayo in dagaalka uu joojiyo balse oo kaliya xabad joojin. sidaas daraadeed Israa'iil waxay u arki kartaa sababta ay dagaalka Gaza dib ugu laabato sida hadda ka socota Lubnaan iyadoo ay weli duqeynaysa ayna ka bixin dhulka Lubnaan xitaa kadib heshiiskii November 2024. cilmi baaraha Falastiiniga ah ayaa ku soo gabagabeeyay in Mareykanku uu markasta dheereeyo xariga wada hadallada marka Israa'iil ay howlgal militari wado isagoo carabka ku adkeeyay in mushkiladda dhabta ay tahay cabsi iyo damaanad la'aan. digniinta Trump dhanka kale Adolf Frank oo ah xeelad yaqaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ah Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu doonayo xabad joojin isla markaasina uu xiiseynayo sii deynta maxaabiista iyo gelitaanka gargaar bini'aadantinimo oo Mareykanka Gaza isaga oo muujiyay kalsooni ah in qodobada qaar laga wada xaajoon karo. Frank waxa uu sheegay in dabaanada kaliya ah Xamaas ay haysato ay tahay in gargaar la geeyo Gaza iyo in dalalka Carabta ay ka qayb qaataan maamulka Gaza isagoo xusay in nabad waarta aan lagu gaari karin muddo gaaban iyo in Israa'iil aysan si dhaqso ah uga bixi karin Gaza. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu cadaadis saaray Xamaas isagoo siiyay digniin kama dambays ah oo ah inay aqbasho qorshaha cusub taasi oo Frank u arkay hanjabaad dadban oo taageeraysa Israa'iil iyo inay qabsato guud ahaan Mareykanka Gaza haddii Xamaas ay ogolaan weydo waxa uu soo bandhigay. iyadoo hanjabaadu ay jirto Xamaas waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo aan lagu farxi karin isla markaasina ay saaran tahay mas'uuliyad culus sida uu sheegay Liqi Maki cilmi baaris oo ka tirsan xarunta daraasaadka Al Jazeera maadaama ogolaanshiyaha qorshahani uu ka dhigan yahay in mar kale la qiyaanaynayo kadib markii hore ay u sii daysay maxbuuska Eden Alexander iyadoo aan waxba ku helin ama aan ku bedelan. sidoo kale diidmada Xamaas ee qorshahani cusub waxa ay ka dhigan tahay sii waditaanka dagaalka iyo howlgallada militari Israa'iil gaar ahaan maadaama qorshahani cusub uu meesha ka saaray dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Masar taasi oo dhalinaysa mushkilad aasaasi ah. Maki waxa uu yiri mushkiladani waa kalsoonida Mareykanka iyo eexdiisa buuxda ee Israa'iil maadaama uu noqonayo garsoore aan dhexdhexaad ahayn iyadoo uu qorshuhu u muuqdo mid u janjeera Israa'iil. cilmi baaraha sare ayaa saadaaliyay in maalmaha soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aan adag leh isaga oo ka hadlay waxa uu ugu yeeray tanaasulka adag ee laga yaabo in mustaqbalka faa'iido yeeshaan iyada oo la eegayo xaaladda musiibada ah ee Gaza qorshaha barakicinta masiirka dadka Falastiiniyiinta iyo qadiyadda dadkaasi. jawaadaha Trump sida uu sheegay Maki waxa ay qayb ka tahay dagaalka maskaxeed iyo taageerada Israa'iil ilaa iyo dhamaadka iyadoo uu tilmaamay in madaxweynaha Mareykanka uu doonayo in cadaadis dheeraad ah uu saaro Xamaas oo uu ka hortago fursad cusub oo wada hadal mustaqbalka.